asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenna xogta dunida oo aynu daaha kaga rogi doonno wararkii ugu dambeeyey ee caawa dagaalada culus ee ka soconaya wadanka Ukraine ciidamada Ruushka oo gacanta ku dhigay ilaa iyo 4 magaalo waxaan idin haynaa dhaqdhaqaaqyada xooggan ee ciidamada Ruushka ay wadaan iyo sidoo kale NATO oo ka digtay suurtagalnimada in Moscow ay adeegsato hubka wax gumaada una adeegsato dagaalka ka soconaya wadanka Ukraine sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa tirada dad ku dhintay dagaalka Ukraine oo sii kordhaysa iyo sidoo kale xogo dheeraada oo wararkii ugu dambeeyay ay ku jiraan daawadayaal mar kale soo dhawaada waxaa daawada fadlan haddii aad nagu cusubtahay channelka subscribe inoo saar furana gambalelka si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya mahadsanid aynu ku bilowno dagaalada iyo sida ay u socdaan waanu gudageli doonaa hase ahaatee aqalka Kremlinka waxa uu shaaca ka qaaday in kulan u dhexeeya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Ukraine Volodymyr Zelensky aan meesha laga saari doonin waxaana carabka ay ku adkeeyeen in muhiim ay tahay in la fahmo waxa looga hadlayo inta uu socdo kulanka iyo waxa ka dhalan kara dhankiisana Mikhail Podolyak oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in horumar laga gaari karo wadahadalada lala yeelanayo Ruushka maalmaha soo socda waxa uu intaasi ku daray in heshiis siyaasadeed oo lala galo Ruushka ay miiska wadahadalka u saaran yahay isagoo oo tilmaamay in heshiiska Moscow ay ku jiraan joojinta dagaalka iyo in ciidamada Ruushka ay si degdeg ah uga baxaan deegaanada ay ka soo qabsadeen wadanka Ukraine inkastoo taasi Ruushka sida uu ku yeelay aan la ogaan doonin dhankiisana Leonid oo xubin ka ah ergada Ruushka ee wadaxaajoodada Ruushka iyo Ukraine waxa uu rajo ka muujiyay horumar in laga gaaro wadaxaajoodadani waraysi uu siinayay RT ama telefishinka Russian Today meesha kama aanu saarin in isfahmo uu jiro saacad waxa uu rajo ka muujiyay in wax walba ay sida loogu talagalay u dhici doonaan dhinaca kalena ururka NATO ayaa ka digay suurtagalnimada in Moscow ay u adeegsato hubka wax gumaada wadanka Ukraine waxayna sheegtay in go'aankan lagu soo afjaraya dagaalka uu yahay mid u gaar ah Putin dhanka kalena midowga Yurub ayaa ku nuuxnuuxsaday in aysan doonayn dagaal lala galo Ruushka laakiin ujeedadu waxa ay tahay bay yiraahdeen in la weeqo hoggaanka siyaasadeed ee mas'uulka ka ah waxa ka dhacay Ukraine colaadda ayaa weli ka socota guud ahaan deegaano badan oo ka tirsan wadanka Ukraine dagaalkana waxa uu galay maalintii 18aad in ka badan 2100 qof oo reer Ukraine ayaa lagu dilay tan iyo markii dagaaladu ay ka bilowdeen wadanka Ukraine 24 bishii hore ciidamada Ruushkuna ay soo qaadeen wakaalada wararka AFP ayaa ka soo xigatay sidaasi duqa magaalada Mariupol wasaaradda difaaca ee Ruushka waxa ay sheegtay in ciidamadu ay la wareegeen 4 magaalo oo ka mid ah wadanka Ukraine waxaana ay kala yihiin magaalada ugu horeysa magaceeda lagu sheegay Balakotadny tan labaad oo ah Vladimirovka saddexaadna waxa ay tahay Pavlovka iyo sidoo kale magaalada afraad oo iyana magaceeda dowladda Ruushka ay ku sheegtay Nikolskaya waxaana ay ku yaalaan duleedka magaalada Mykolaiv oo koonfurta galbeed ee wadanka Ukraine ku taala dhanka bari ee dalkana wasaaraddu waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ku sugan Luhansk ay go'doomiyeen tir aagaga oo ku yaala duleedka magaalada lagu magacaabo Popasnia ciidamada Donetsk waxa ay go'doomiyeen bay leedahay wasaaraddu magaalooyinka Sever iyo sidoo kale Donetsk ee bariga iyo koonfurta dhanka kalena warar ayaa ka soo kordhaya weerarka Ruushka uu ku qaaday saldhigga military oo ay leeyihiin ciidamada Ukraine waxaana goobjoogayaal ku sugan weerarka lagu hoobtay ay ka sheekeynayaan sida ay wax u dhaceen cirku wuxuu isu bedelay dhimbilo markii ay gantaalo ku garaaceen saldhigyo u dhow xadka Poland ugu yaraan 35 qof ayaa ku dhimatay duqeynta uu Ruushku ka fuliyay xerada tababarka ciidamada ee Yavoriv oo u dhow goob weyn oo looga gudbo xadka dhinaca Poland oo ay isticmaalaan qaxootiga ka soo qaxaya dagaalka Ukraine gudoomiyaha gobolka wuxuu sheegay in aroornimadii saakayto ciidamada Ruushku ku dhawaad 30 gantaal ku garaaceen saldhigga oo ku yaala duleedka magaalada Lviv markii hore waxaa la sheegay ilaa 8 gantaal saacado kadib weerarka waxaa goobta kusii qulqulay gawaarida gurmadka degdega ah wadooyinka soo gala xarunta ayaa lagu gooyay jidgooyo maamulka waxay bilaabeen baaritaano ku aadan weerarka waxaana sidoo kale la sheegay inay jireen dadaalo loogu gurmanayo dadkaasi diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa ku dhawaad 30 gantaal ku dhuftay goobtan oo sidoo kale loo yaqaano xarunta nabadda iyo ammaanka ee caalamiga ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Lviv inkastoo inta badan la qabtay gantaaladii ku wajahnaa halkaasi muuqaal ku saabsan weerarka oo la helay ayaa muujinaya qiiq iyo uuro madow oo cirka isku shareeray oo ka kacay dhismo yar oo ku dhawaa saldhigga Vitali oo ah arday 19 sano jir oo ku nool guri dabaqa oo u dhow saldhigga ayaa yiri xalay cirka dhimbilo ayuu isu bedelay markii uu weerarku dhacay ma aanan maqli karin qalabka duqeymaha kadiga waxaana soo kacnay markii aan maqalnay dhawaqa qaraxii koobaad waxaan tagnay goob dhufays ah cabsi ayaa nala soo darastay wiil aan ilmo adeeranahay oo 25 sano jir ah ayaa ku tababaranaya xarunta ayuu yiri Mr Vitali qoyskiisuna waxay weli isku dayeen in ay la xiriiraan isaga sidoo kalena
Nadine oo ka mid ah dadka deegaanka islamarkaana ah sawir qaade waxa ay sheegtay in dab uu ka kacay guri ay degan yihiin waalidkeed halkaas oo ay ku nooleed kadib markii ay ka soo qaxeen caasimadda Ukraine ee Kiev. Waan naxsanahay, xaalad jahwareer ah ayaan ku jirnaa. Hadda waxaan ogaanay in aysan macno lahayn meesha aad ku nooshahay, amni darro ayaa jirta. Sidee ayaan ku tagaynaa Poland annaga oo nabad ah, ayay tiri. Saldhiggan ayaa horey loogu tababari jiray ciidamada Ukraine, iyada oo inta badanna ay tababarka bixinayaan ciidamo ka socda Mareykanka iyo sidoo kale wadamada kale ee ka tirsan gaashaanbuurta NATO. Ilaa haddana ma cadda in ciidamada ajaanibta ee ku sugnaa saldhiggaasi markii la duqeynayay ay waxyaalo soo gaartay in kale. Weerarkan waxaa lala beegsaday mid ka mid ah saldhigyada military ugu waaweyn Ukraine, wuxuuna ku yaalaa meel 25 kilomitir oo keliya u jira Poland oo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO. Xuduudka Poland waa marin muhiim u ah qaxootiga, laakiin sidoo kale waxaa laga soo gudbiyaa hubka ay soo diraan wadamada ku jira isbahaysiga militariga ee NATO, kuwaas oo ka mid ah gantaalada lidka taangiyada iyo sidoo kale lidka diyaaradaha. Waa weerarkii ugu horeeyay ee Ruushka uu ku fuliyo galbeedka Ukraine tan iyo markii uu ku soo duulay waddankaasi. Gobolka ayaa noqday halka ay maraan malaayiin qof oo ka baxsanaya dagaalka ka socda deegaanada kale ee Ukraine. Ilaa iyo hadda waxa Ukraine ka qaxaya 2.6 milyan oo qof. Geesta kalena gooni ugoosadka Donetsk ayaa ku eedeeyay ciidamada Ukraine inay duqeeyeen deegaanadooda, waxayna Moscow ay sheegtay in ay soo rideen gantaalkii Ukraine ee halkaasi ay ku ganeen, waxayna wacad ku martay in ay beegsan doonto kolonyada ciidamada shisheeye ee gargaarka u siday Ukraine. Dhanka kalena ra'iisul wasaaraha Britain waxa uu yiri waxaan sii wadi doonaa inaan garab istaagno Ukraine dhammaan dadaalada lagu soo afjarayo colaadda musiibada ahna diyaar ayaan u nahay. Gudoomiyaha golaha Yurubna waxa uu yiri waxaan diyaarinaynaa cunaqabateyn mustaqbalka ah oo ka dhan ah Ruushka oo laga yaabo in ay ka xoog badnaato kuwa la soo rogay. Waxaan nahay kuwa go'aan leh isla markaana midaysan, waxaanan u haynaa taageero maaliyadeed iyo mid bini'aadanimo waddanka Ukraine. Duqa magaalada Kievna waxa uu leeyahay waxaan sii wadaynaa hirgelinta sharciga dagaalka, waxaan diyaar u nahay inaan difaacno magaalada. Haddaba dagaalada waxa ay yihiin kuwa soconaya iyada oo ciidamada Ruushkana ay maalinba maalinta ka dambeysa ku sii siqayaan aagag badan oo ka tirsan waddanka Ukraine. Ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu leeyahay waxa ay reer Ukraine u baahan yihiin marka loo eego qiimeynta Pentagon-ka waa hubka lidka diyaaradaha, hubka taangiga iyo sidoo kale hubka la isaga difaaci karo cadowga. Pentagon-ka ayaa qiimeynaya sidii diyaarado loogu rari lahaa hubkaasi, ayuu yiri. Militariga Ruushka ayaa saacadba saacadda ka dambeysa kusii soconaya aagag badan oo ka tirsan waddanka Ukraine, waxaana ay gaarayaan guulo waaweyn sida ay sheegayaan warbaahinta waddanka Ruushka. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada Ruushku ay hadda kaabiga ku hayaan magaalada caasimadda ah ee Kiev, iyada oo la filayo in maalmaha soo aadan ama saacadaha soo socdaba ay gacanta ku dhigaan magaaladaas oo ah mid haddii gacanta lagu dhigo meesha ay ka bixi doonto guud ahaan dowladda. Dawladasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano barnaamijkeena xogta dunida caawa aanu ku eegaynay wararkii ugu dambeeyay dagaalada Ukraine. Waa naga intaas. warka wixii kusoo kordha wararkii barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.